habeenkii labaad waxa la yiraahdo barnaamijka bandhiga buugaagta celiska oo ru'aanta barnaamij qiimo badan oo waxa la yiraahdo dhinac walba ka dheelitiran waxaan joognaa habeenkii labaad barnaamijyadii qaybaha dhexe barnaamijkan inta dihin doonaa waa haweenka iyo bulshada sidaynu ognahay haweenku ama hooyadu ama habluhu waa laf dhabarta bulshada si ay waxa la yiraahdo barnaamijka qaybtooda uga noqdaan oo aynu isla eegno waxaan soo qabanqaabinay banalkan oo ah haweenka iyo bulshada waxaan igula casuuman oo hadii ilaahay idmo barnaamijka isla eegi doona Dr. Suhuur iyo Dr. Foosiya hadii aaba idmo su'aalaha ayaan bilaaban doona su'aasha ugu koowaad aan ku bilaabay waxay tahay muxuu yahay doorka haweenku ay ku yeelan karaan horumarka bulshada waxaan ugu horeysiinayaa Foosiya intaanan u guda gelin maxay ay toolay su'aashaas intaanan ka jawaabin waxaan doonayaa inaan ka hadlo horta aan galo doorka ama maxay hay toolay muhiimadda iyo ahmiyadda ay haweenku leeyihiin bulshadan u leeyihiin sidaynu ognahay nabi aadan calayhi salaam markii uu joogay jannada u dhex joogay wuxuu dareemay maxay hay toolay ciriiri ayuu dareemay lonely buu dareemay maxay ahayd toole Allah subhanahu wa ta'ala muusan oran muxuu yahay makhluuqan aan jannadii keenay ee waxa soo nimca waxa soo anhaara waxa soo webiya waxa soo futuuxaada waxa soo nimcooyin haysta ee hadana cidlada dareemaya Allah subhanahu wa ta'ala saas mu oran he knows uu og yahay wuxuu dareemayo Allah subhanahu wa ta'ala dan wuxuu sameeyay Allah nabi aadan uu seexday dan markuu seexday waxa laga abuuray Huwa ama Xaawa si Soomaalidu taqaano nabi aadan aad buu ugu farxay calayhi salaam aad buu ugu farxay maxay ahayd toolay way dajisay wuxuu ku yiri tuma tahay waxay tiri waxaan ahay Huwa micnaheedu waxa weeye ama Xaawa si Soomaalidu taqaano Huwa micnaheedu waxa weeye yaani makhluuqan waxa laga abuuray another makhluuq oo xay ah oo nool baa laga abuuray marka way dajisay bal imagine gara adigoo jannadii jooga oo waxa soo nimca haysta hadana kaliya ay ku dajisay maxay ahayd wali xaaw inta markaan ka imaado hadaan u guda galo su'aasha dumarku doorka ay ku leeyihiin bulshada waxa weeye door aad u muhiim ah waa nuski dhalayay ama maxay ahayd wali aan qarnay nuski kale bulshada doorka ay ku yeelanayaan way horta aad first ugu horeynba inay iyagii maxay ay toolay iyadii dhisto markii ay iyadii dhisto aqoon ahaan u dhisanto diin ahaan u dhisanto ay maxay ay toolay sameyn kartaa ayay bulshadii horumari karaysaa maxaa la yiraahdaa haweeney waxba inaan wax baratay waxa weeye bulsho wax baratayna maxay noqonaysaa simple maxay noqonaysaa bulsho horumartay bay noqonaysaa marka doorka ay ku yeelanayaan waxa weeye horta inay iyadii is horumariso iyadii akhlaaqdeedii dhisto iyadu maxay ay toolay aqoonteedii dhisto iyadii wanaagsanaato marka kadib bulshadiina way toosaysaa way wanaagsanaanaysaa isla su'aasha ayaan ku soo dhaweynayaa Suhuur waa markii ugu horeysay stage-ka intii labadii bari ahayd barnaamijku inoo socday haweenka lagu casuumo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo haweenka lagu casuumayna waxaan oran karnaa doorka ay ku leeyihiin haweenku bulshada waa door aad u muhiim ah waxaynu ku wada hadlanana ma aha balse waxa jirta mar walba wacyiga iyo garaadka kor in loo qaado isxasuusin iyo baraarujin la sameeyo si meeshii la joogay kor looga kaco marka waxaan leenahay doorka ay haweenku ku leeyihiin waa door aad muhiim ah isla barnaamijka ma tusaale u soo qaadanaya anigu waxaan ku daadihin inay tiro haween oo ilaa 8 xubnood iyo dhowr wiil markii ugu badan 3-4 xubnood bay haynamadu waa numberka ugu horeeya tusaale u soo qaadan karno in haweenku door muhiim ah ku leeyihiin talabaysan soo qaadanaya barnaamijyada iyo wacyigelinada ka socda gobolka waxa ugu badan haween waa tusaalaha ugu dhow ee aan oran karno example buu noqonaya haweenka iyo doorkooda guud ahaan geyga Soomaaliyeed iyo meel kasto Soomaali joogto tiradii iyo waqtigii aan ku jirnay dagaalada burburka iyo dhibaatada cid kasto la soo tacaalaysay cid kasto ka qayb qaadanaysay horumarinta bulshada cid kasto hiil iyo hoob ay nala garab taagnayn inagoo yara iyo inagoo jiil waaweyn iyo inagoo dagaal ku jirnay inagoo qaxaynayba waxay ahaayeen haween
oo waad arkayseen oo waxaad arkaysaan haween badan oo hooyooyina oo caruurtooda masaariiftooda iyo fiigooda iyo hawshooda daba socda oo ay haabayaasho dhinteen qaarna ay noqdeen wax daroob awda ama muqaadaraysta oo inta badan waxaynu aragnaa haween kimis dubaya haween yaanyo xabuub iyo waxyaabahaas kala suuq ku iibinaya waxa soo saaray ma aha iyadu waxay doonayso oo ah inay bacad fadhiisato kaliya waxa weeyaan inay bal ubadka iyo jiilka ay ka soo saarto mugdiga ku bixiso fiiga ku bixiso waxyaabaha basic needs ay u baahan yihiin hadii aynu soo qaadano xilligii nabiga kaleey salaatu wasalaam la soo dirayay qofkii u horeeyay oo haween ahaa garab qotayuha Khadiija bint Khuwaylid oo ahayd xaaskii koowaad oo nabigu guursaday saan jeclaa waliba culimadiina way fadhiyaan maxay door weyn bay ka qaadatay Khadiija waxay ahayd ganacsato haweeney ganacsata oo maal leh oo qaniya bay ahayd wixii u horeeyay nabigu qabtay maxay ahayd inuu iyada u shaqeeyo oo uu ganacsiga ka caawiyo kadibna ay aragtay amaanadiisi iyo sida uu gudanayo waajibaadkii ganacsiga halkaas waxay tusaale u tahay qofku markuu amaano leeyahay qof kasta jeclaanaya qof kasta raacaya qof kasta caawimo iyo ka dalbanaya inuu ku caawiyo waxyaabaha uu hayo marka ganacsigii ay uu ka caawiyo halkaas isfahaniyo waxa wada shaqeyn baa dhextimi saas laajigeed ba hadana maarifadii ku sii dheeraatay hadii aynu tusaale kale soo qaadano mid kamid ah haweenkii nabiga yadna Aisha radhiyallahu anha waxay ahayd todobadii qof ee ugu xaadiista badnaa waxa jira dad ku dooda haweenkii intay wax bartaan inay guriga fadhiyaan waxa tusaale ugu soo fudud ah inay saxaabadii nabiga kaleey salaatu wasalaam ka qaadan jireen Aisha iman jireen wax weydiin jireen xataa su'aalaha qaar oo ay adag tahay rag inay weydiiyaan haweenka ay weydiin jireen taas waxay sheegaysaa in haweenadu hadii ay wax barato oo ay cilmi maadi iyo mid diiniba ay barato ay bulshadeedii manfac ku soo celin karto rag iyo dumarba marka way badan yihiin haweenka hadii aynu 1 2 3 4 nidhaahno ma soo koobi karno door aad u muhiim ah bay ku leeyihiin waana hooyada koobaad ama shay qofka koobaad oo ilmuhu markuu yar yahay tarbiyadiisa ka qayb qaadanaya ilmuhu markuu koobaad uu arkaa haduu hooyo wanaagsan oo wax baratay oo markay 40 ku jirto barta ay jiifto waqtigeeda uga faa'iideysanaysa akhris iyo qoraal iyo inay ka faa'iideysto waxyaabo wanaagsan oo xadiis ku dulshidanaysa uu ku soo koro biyo marka uu horeyso uu ku soo koro muxuu qaadanayaa tarbiyada wanaagsan buu qaadanayaa hadii sida ay hadda ay tahay biyadeenu oo ah biyo isbedeshay oo dhan maadi iyo diiniba wixii ba isku khalkhaleen oo social media iyo waxyaabahaas oo hadda aad inoogu badan hadii hooyo TikTok ku dul daawato isla laajiligeed maxaa iyada imanaya biyo khasaartay oo fasahaaday oo ilmihii yaraa darka silma lix jira oo la rabo inuu quraanka basic uu maro oo alif iyo ba uu akhriyo adarka ilmihii lagu faanayo adarkaas aabe am hooyo ku faanaysa ilmaha geerjaas ku yaqaana saas uu ciyaara waxaas uu sameeyaa heestaas uu qaada waa waxyaabaha inta badan biyaadi khasaarinaya oo burburka ugu badan keenaya hadhoona halkaas uu bilowayna galo su'aashada labaad waxa dhahaysaa si loo helo bulsho ka dhisan aqoonta diimeed iyo tan maadiba maxay tahay waxa laga rabo haweenka ee doorka ay ku yeelan karaan macnaha maadaama la rabo in la helo bulsho ka dhisan xaqii diini ama maadiba maxay tahay waxa laga rabo ama doorka laga rabo ee ay haweenka Soomaaliyeed qaban karaan maadaama ay la dhaho gabadh wax baratay waa bulsho wax baratay ama waa laf dhabarta bulshada maxay tahay waxa laga rabaa yaad caaw u soo jeedin lahayd ay ku yeelan karto haweeneydu xagga bulshada si ay u yeelato ay uga dhisnaato xagga aqoon diimeed iyo aqoon maadi waxay ahaan karaysaa horta su'aashan waxay la mid tahay ama soo yar shabahaysaa su'aashii markii hore ay soo yar shabahaysaa su'aashii markii jawaabteed waxayna ahayd marka ugu horeysa asfaas waxa weeye inay marka ugu horeysa iyadu iska dhisto maxay aqoontii iska dhisto haweeneydu markay iyadu diintii iska dhisto ayay bulshadii maxay noqonaysaa bulsho diin iyo aqoonba ka dhisan waxaan ognahay qofku inuu haduu barto cilmiga diinta kaliya uu ku taxalluqo cilmiga diinta haduu ku taxalluqo inuu noqonayo qof adduun iyo aakhiraba faa'iidaya laakiin haduu qofku uu cilmi maadi kaliya uu ku taxalluqo waxa dhici karta jaas inuu adduunka faa'iido laakiin aakhira aysan waxba u ool marka haweenku waxa la doonayaa maxay inay horta marka hore iyadii iska dhisto cilmigii diinta ay barato maxay fiqigii barato siiradii nabiga barato kaleey salaatu wasalaam sidoo kale ay barato quraankii ay barato maxay ahayd toole quraankii kaliya aysan baranay tafsiirkiisina ay barato ayaa la doonayaa markay iyadii barato ay diin ahaan uga dhisnaato ay rabto inay model u ahaato ay ku dayato maxay ummahatul mu'miniinka sida imika sheegaysay suhuur ay ummahatul mu'miniinka ku
dayato waxay ahaayeen shakhsiyaad aad u ah great persons bay ahaayeen shakhsiyaad qawi ah bay ahaayeen maxay ahayd toole haddii diinta islaamka laga hadlo the first person belief gareeya ama aamina inay noqonayso Khadiija at the same time waliba markaas waxa la mid ah inay maxay ahayd toole qofkii ugu horeeyay u shahiiday ama u geeriyooday ay noqonayso Sumaya Muammar bin Yasir ay ahayd marka waxa la rabaa haweeneyda muslimadii inay ku dayato maxay ahayd toole ummahatul muslimiinka great persons ay ku dayato diinteedii dhisto marka ay diintii dhisto iyadu aqoon diimeed yeelato aqoontii maadiguna maxay sameynaysaa balance bay noqonaysaa way balance garoobaysaa adbaad mahadsan kulay isla su'aashii baa la igu soo celiyay faahfaahin guudna way ka bixisay Foosiya kulay doorka ay ku yeelan karaan cilmiga iyo aqoonta way wax badan baynu ka soo sheegnay kaliya waxaan ku darayaa haweenku waxa jira intaas oo haween oo halka fadhiya waxa ugu badan ay barteen waa cilmi sharci iyo cilmi maadiba inamadu way ku yariyeen cilmiga shariicada laakiin habluhu cilmi maadi iyo cilmi diiniba way barteen anigu waan iska bilaabay hoose dhexe sare waxaan ku soo qaatay diini aan markii dambe u biiro aan u baydo fiil kale iyo aqoon kale laakiin hoose dhexe sare diin waa ku soo qaatay habluhuna inta ugu badan buu hadlo waasaas kaliya waxa inaga maqan waxa jira hablo badan oo jaamacad ka qalin jabiyay waxa jira hablo badan macayd ka qalin jabiyay laakiin waxa jirta hablihii guryaha ay la fadhiyaan waxay oranayaan waan baqaynaa ma gudbin karno ma baalkin karno laakiin waxa jirta waxaad uga faa'iideysan kartaa public speaking kaliya aad barato 20 haween aad isu keento qalabka jimcaha kaliya aad muxaadaro u qabato waxba rag iyo waxba hortaginba kaliya just inta aan uga faa'iideey xaafadada magaalooyinka kale waxa jirta xaafadii way isbalansanaysaa ugu yaraan 30 haweena 20 haweena waxay sameeyeen malcaamada ka jira xaafadaha malcaamadaas lagu balansanayaa iyaga kaliya ay soo imanaya xantii bay iskala hadlayaan waxa laga yaabaa suuqa dhan mid xamaanaysa la waayo waxay ka hadlayaan salaadii dahaaradii bay ka hadlayaan bir waalideenkii waa gabdhihii laga hadlaya waxyaabahaas oo waxyaabo aynu u baahanahay laakiin inaga maxay nagu dambaysaa intaynu adduunka dambaynaa leeyahay adduunka uga dambaynaa leeyahay samaha waxaynu kaga dambaynaa oo anigu aan faas ka dhigayaa haweenkii ma aaminsana awood ay leeyihiin ma aaminsana cilmiga ay leeyihiin ma aaminsana codkarnimadooda xaafadaha markaynu joogno wax inaga hadal badan ma jirto runta marka la isku sheego xaqiiqatan wax inaga hadal badan ma jirto wax inaga sheeko badan ma jirto wax xanta iyo hawlaha dhibaatada inaga badan ma jirto laakiin marka la yimaado meel lagu sheegayo khayr meel lagu sheegayo cilmi meel lagu sheegayo waxaas oo dhan maradayna afka wada saarnaa inaynu meelaha xumaanta ka muuqano وواحد مالي وانا جاينا كمان قلنا واحد wanaagsan oo inuu ku soo baxno marka aanu kaliya waxaan kula dardaarmayaa haweenka waliba anagu ka warhandis ahaan ruuxan gudoomiyaha ruuxandis waa ka caawinana 20 haween haday isku soo arubsadaan nala soo xidhiidhaan ilaahan public speaking ka kaliya bal inaanu bulshada wax u gudbino oo haweenka aanu la hadalno naga dhisa jis laba jimca ku filan oo la siiyo tababar yar am trainer waxa kaliya ku boorinay waxa weeyaan waxba bulsho weyn iyo rag iyo waxa hor imanine kaliya bal caruurtii iyo haweenkii aan waxba baran guryaha joogay hal lagu caawiyo cilmigan aynu hayno waan la dhimanayna bari kamaal inta aan caawiyo hadaan idin sheegin laga yaabo in aroortiba gaadhin laaba inagu ma keenay oo aan la dhinto marka intii ay la dhiman lahayn aynu gudbino oo dadkii u gudbino oo ka faa'iideysano mid kalena waan ku darayaayo waxa jirta sharaacadii waxaad moodaa hadda aad baa looga sii tagaya in barashadeedii macaahidi baa lagu yaraanayaa marka saa loo dhameeyo macadkii caafimaad baa la gelayaa wax walba riisa baa ka dambeeya sabab baa ka dambeeya in caafimaadka gabdhuhu ku bataan in badan waa la weydiiyaa su'aasha marka aynu goobo isugu nimaadna leeyahay waxay haweenkan faraha badan caafimaadka dhiganaya macadkii baa la imanaya intaas haweenaa dhiganaysa sababta ka dambaysa marna la isma weydiiyo waxa ka dambeeya riisanka ka dambeeya anigu aan u saleeyay qof walba fikrad buu leeyahay fikrada anigu ka dambaysa aan leeyahay haweenku waxay uga imanayaan waxyaabihii kale shaqo la'aan baahsan baa ka jirta gabadhi waxay dhamaysay dugsi hoose waxay dhamaysay dugsi dhexe waxay dhamaysay dugsi sare 4 sano jaamacada shaqo tag way soranaysaa hal macad shaqo laga siin maayo hal institution shaqo laga siin maayo sharaacadii waxay uga cararaysaa waxay rabtaa qofkan inuu adduun iyo aakhira baxin u baranaa adduunka iyo aakhirada inuu ku liibaano hadii aynu adduunka ku liibaanayn de aakhirada hadda muhiimad cidmo ma siinasaba waxa lagu horeysay ayaga dadkii waa adduunyo marka maxay nagu soo jiidi karnaa dadkii inay diinigii bartaan oo cilmigii talabaysa budgetkii baa yar caafimaadkii budgetkii waa fara badan klinika dad ka shaqeyso ay hawaris shaqeyso waxa laga yaabaa halka xiisa macalinka diinigii dhigayo 8 xiisu dhigayo inaad ka lacag badato marka
waxyaabaha reasonka ka dambeeya in shareecadii laga yaraado oo barashadeedii laga koobto waa in dib loo eego waliba culimadii waxaan jeclahay culimadii inay nala joogto in dib loogu noqdo oo shareecadii dadka lagu soo celiyo idinkaa ku soo celin kara dadka macaahidda haysta oo maamulayaasha ka ah dadka jaamacadaha haysta ayaa ku soo celin kara in diiniga dib loo dhigto cilmaaniyadda maxay noo fudaydinaya oo sheekhu ka hadlayay waxay noo fudaydinaysaa dhalinyaradii oo cilmi diini iyagoon lahayn cilmi maadi baranaya oo bugaagtii Soomaali ku akhrisanaya oo Ingiriis ku akhrinaya oo tabtii duuduub ugu liqaya maxay taasi keenaysaa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hadduu san garanay qofkii muxuu iskaga celinaya dadka qaar baa dhalinyarada ku oranaya jimicsi baan u baahanaa salaadu waa jimicsi bay ku oranayaan salaadii waa jimicsi had qofkaas kale ugu jawaabi kartaa wuxuu bataagan yahay salaadu waa jimicsi maxaan maan jiim galab bataagan yahay marka waxba yahay hadalka dheeraynin dhaliisha ugu weyn waxaan saarayaa dadka institutionada diiniga haysta war cilmiga diiniga dadka lagu soo celiyo oo ha loo fudaydiyo gabdhihiina inay shaqadii ku helaan oo dhalinyarada shaqo ku helaan oo la barto oo diiniga dib u noqo bilaa tawfiiq mahadsantiin insha Allah aan ku sii siqanaa su'aalihii ugu dambeeyay ee barnaamijka haweenka iyo bulshada intaas haddaan uga nimaadno su'aalaha guud aan u galno fiiliska ama qaybaha ay barteen hablahana ee aqoonta u leeyihiin runtii waa caafimaad maxay tahay doorka haweenka kaga aadan caafimaadka waa su'aasheeda shanaad aan weydiinayo Foosiya doorka caafimaadka kaga aadan waxa weeye waxay ka tahay number 1 bay ka tahay maadaama ay tahay hooyadii qofkii aasaasihiisa hore u soo sheegnay maxay tahay foundationkii bay tahay ama aasaasihii bay tahay marka doorkay ka yeelanaysa waxa weeye inay maxay ahayd toole horta iyadu waxyaalihii aasaasiga ah ogaato maxay ahayd toole tusaale ahaan COVID-19 iyo sida la isaga ilaalinayo shubankii caruurtii personal hygiene-keedii inay kor u qaado maxay ahayd toole inay iyadii family planning-kii iyo kala korintii caruurta ay barato maxay ahayd toole iyadii ay disease-ku ama xanuunku saddex wax buu ku faafaa marka ugu horeysa waa in agent la helo maxay ahayd toole waxyaalihii sababayay xanuunka sida ama virus ha ahaado ama bacteria ha ahaado ama wuxuu doonaba ha ahaade waxa ku xiga in bacteriyadii markii la helo ay hesho ay timaado ay yeelato maxay ahayd toole environment ay hesho environmentigii markay hesho waa inay heshaa host qof ay u gudubto way heshaa hooyadii hadii ay maxay ahayd toole just kaliya ay iska nadiifiso gurigeedii nadiifiso iyadii personal hygiene-keedii ku dadaasho maxay ahayd toole environmentigii gurigeedii nadiifiso just chainkii uu ku gudbay ama habku ku gudbay xanuunku maxay imanaya destruction baa ku imanaysa ama halkaas ku burburaya xanuunkiisu uu gudbaynin sidoo kale maxaa loo baahan yahay family planning maxaan ka soo sheegay hooyadu waa inay si fiican maxay ahayd toole u focus garaysaa hooyadu markii ay caruurtii kala koriso ay maxay ahayd toole kala nasato maxay helaysaa power bay helaysaa maxay helaysaa waqti ay kan maxay ahayd toole akhlaaqdiisa ku toosiso kan maxay ahayd toole caafimaadkiisa ku ogaato kan ay naas ku nuujiso wixii waxay u kala helaysaa maxay waqti bay u kala helaysaa marka maxaa la doonayaa maadaama ay hooyadu ka tahay number 1 ka tahay ama qofkii ugu nuglaana ay tahay dumarka iyo caruurtu maxay yihiin susceptible bay yihiin xanuunkii ama way nugul yihiin marka maadaama iyagu ugu nugul yihiin iyagii caruurtii maxaa la doonayaa inay number 1 mar walba ka tahay ay maxay ahayd toole qodobkaas caafimaadka ay diiradda mar walba focus ka saarto ayaa loo baahan yahay mahadsantiin dowladda Foosiya si qurux badan oo qiimo leh inoogu qaadarisay haddaan u sii galo su'aashayda kale waxaan ku dhex jirnaa wali su'aalaha caafimaadka ama la xiriira aqoonta ay hablahani barteen seen ognahay wax walba adduunka hadda kor u qaadis ama tayeyn ayaa ku socda marka kor u qaadinta ama tayeynta caafimaadka lagu wado door intee leeg ayay isleedihiin haweenku ka qaadan karaan waa mahadsantahay Nasra Cabdi Cabdilaahi oo inoo daadinaysa barnaamijka aad u mahadsantahay kulay door aad muhiim ah way ka qaadan karaan haweenku waxay kaga qayb qaadan karaan inay xarumihii ku xidhmaan hooyadu xilliga ay nujinayso xilliga ilmihii wado xilliga ay dhasho ilaa heer ilmihii uu koritaan fiican ka helo inay MCH-kii xarumihii caafimaad ku xidhnaadaan taas waxay keenaysaa in xarumihii lagu xidhnaado in daryeelkii la helo oo dawadii la isticmaalo oo ay socoto shaqadii xaruntu marka waxaan kula talinayaa inta ay daawanayso intay maqlasaba in xarumaha lagu xidhnaado daryeelkana si sax looga qaato dawada marka la qaatana si sax loo qaato processka dhakhtarku ku qorayna lagu qaato waa ka cudur daaranaya inay doctorayso tiraahdo Nasro aan nurse baan ahay doctor ma gaarin insha Allah saadaalin fiican bay wadaa
hadda ayaa doctor noota anaga insha Allah su'aashayna ku xigta waxay tahay intii aad ku dhex jirtay aqoonta caafimaad maxaa kaaga soo baxay oo aad aragtay wax kala doodoola oo aad isleedahay waxa dayacay ama ka gaabiyay haweenka thank you su'aashaas ay weydiisay waxa weeye su'aal aad u muhiim ah waa su'aal u baahnayd maxay in laga jawaabo dumarku daldaloolo fara badan ama waxyaalo badan ay xagga caafimaad ka gaabiyeen iyagoo maxadadii u badan iyagoo maxay ahayd toole caafimaadkii u badan ayaa haddana maxaa ka jira guryihii waxaa ka jira gaab aad u fara badan baa ka jira guryihii waxa weeye gaabka ugu weyn waxa weeye wax la yiraahdo primary health care dumarku ma sameeyaan wax la yiraahdo primary health care ma sameeyaan primary health care muxuu yahay waxa weeye waa asaasiga gargaarka asaasiga weeye daryeelka asaasiga weeye waxa weeye hooyadii inay haydkeedii weydkeedii cabirkeedii dhererkeedii miisaankeedii ogaato inay BB-geedii la socoto inay maxay ahayd tole HB-geedii iscabirto mar walba waxa dhici karta hooyo anemia in lagu keeno waqtiga anemia waxa weeye normal moderate iyo safiir maray xaaladda u dambaysa joogto waxa dhici karta hooyadu inta ay moderate ka tahay ama xaaladda dhexdhexe ku jirto anemiyada inaysan goobaha caafimaadka imanba waqtiga kaliya imanaysa waxa weeye goorta ay less than 7 noqoto ama 7 ay hoos uga marto 5 laba dhiigeedu iyadoo yahay ay ku imanaysaa haday doonto 8 bilood 9 biloodna maxaad samayn karaysaa marka just waqtiga ay dumarku yimaadaan hooyo kaliya ayaan oran iyadoo inana xanuunsanaysa ay guriga joogaysaa u dul qaadanaysaa iska joogaysaa kaliya diidaysaa inay inta dhakhtarka qabato dumarku kaliya waxay yimaadaan goobaha caafimaadka waxay yimaadaan marka ay u baahdaan emergency obstetric care markay u baahdaan amal xaalad degdeg ah oo wax ka qabasho u baahan markay rabaan ayuunba yimaadaan goobaha caafimaadka inta yara tugtugroon yihiin marnaba ma imanayaan waxa dhici karta inaad maxay ahayd toole adiga inta wacyigelin caafimaad siinayso consult inaad sameynayso la talinayso waxa dhici karta inaysan kaaba qaadanayn hooyadani ay socio-economic status ka fikiraysaba waxay ka fikiraysaa dhaqaalihii guriga income bay ka fikiraysaa waxa dhici karta in iyadu mas'uuliyadii ay haysaba guriga oo iyadu guriga u shaqeyso ayaa dhici karta marka maanta bariba consulting aad siinayso ama la talintan aad siinayso dhinac kale ka marayaanba waxa dhici karta inay u raadinayso irsaaqad ay u raadinayso ama iyadu u shaqeynayso ilmaha nool bay u raadinaysaa wuxuu cuno kan caloosheeda ku jirana waxa dhici karta inaysan ka fikirinba marka dumarku waxay ka gaabiyeen goobihii caafimaadka wax contact lama laha hospitaliski contact lama laha MCHski contact lama laha kaliya waxay imanayaan goorta xaaladoodu maxay ahayd toolay ay aad u xumaato ayay u imanayaan nutritional statuskeeda ama xaaladeedii nafaqo la socon mayso maxay ahayd toolay dhiig karba iskaga soo boodaya diabetic ba iskaga soo boodaya xanuunadaas iskaga soo boodaya intii ay fiicnayd waxa dhici karta inaysan wax measurement ama cabir aysan sameynba oo ay sogaaninba aad baad u mahadsantiin waxaan rajaynayaa hadii ay gaadho fariintaydaas ay gaadho inay dumarku aad isaga dhisaan qaybtaas ah inay maxay ahayd toolay ku xidhnaadaan MCHdii inay ku xidhnaadaan goobihii caafimaadka waxaan rajaynayaa inay qaybta aad isaga soo kiciyaan waa sida ay Foosiya sheegtay runtii intay hooyadii ka fakarayso risaaqadii ay ciyaarka u doonaysay ayaa waxa la yiraahdo iyadii nafteedii ilaawaysa ama waxa la yiraahdo ilmihii caloosha ku jirtay ilaawaysa taasna waxa wax walba sabab bay leeyihiin waxa sabab ah aabihii reerka lahaa oo dayacay ama booskii doorkii ama waxa la yiraahdo qaybtii uu kaga aadanayay nimayaashu oo meesha ka baxay marka waxa la yiraahdo waxaan ku darsanayaa kelmadeyda oo ah in waxa la yiraahdo horta aynu joojino waliba kelmadeyda nimayaasha ku socotaaye saska aynu ka qabno hablaha wax bartay ama waxa la yiraahdo aynu ka aad ka sisantiin aad sileed waxa la yiraahdo gabadha haday wax barato isma fahmi karaysaan waxa dhacda waxa la yiraahdo inay nimanku ama ay raggu ay ka sasaan oo waxa la yiraahdo ay isdhahan gabadha haday wax barato ma anfacayso waxa la yiraahdo ilmihii ama reerka wixii ma anfacayso marka noloshu way isfahane gabdhaha waa inay wax bartaan aad ka sisantiin joojiya shalay kan buugta ku gadanawday baa noo yimid wuxuu yiri buugta ay wasiya idinkuna xarooda waxaan kuna adeer wadi wax la siinayaa ay jirto ama wax free ay jirto xaga ma soo taagneen dadna uma faa'iideyneen intaan buug gadno hadana kuwa kale kuma qaateen marka waxa la yiraahdo waxa
aaminsan yihiin dadka badankoodii kale qof wax bartay ma malayn maayo inuu aaminsan yahay iyo waxa yiraahdo gabadhi aysan wax baranin waxay ka caawinaysaa hooyada wax baratay ilmahaaga inuu daryeelo ilmo jir ahaan maskax ahaan iyo aqoon ahaanba ka dhisan inuu aad aabo u noqoto ama aad dasho marka waxaan soo jeedin lahaa kelmadeedan oo ku darsanaya inaynu joojino waliba nimayaasha joojiyaan saska ay ka qabaan waxa yiraahdo hablaha wax bartay haddana waxaan ku soo gabagabaynayaa su'aasha ugu dambaysa oo aan la wadaagay labada habloodba maxay tahay talada ay u soo jeedinaysan dhammaan haweenka Soomaaliyeed waad mahadsantahay Nasro aad waa mahadsantahay hal talan su'aasha ku darsanayo ah dhammaan inamiyo hablaba aan soo jeedinayo intiina halkan fadhida iyo intiina maqlasaba qofka aan blood groupkiisa aqoon ama nooca dhigiisu yahay inuu marka u horeysa blood groupkiisa ogaado si xaalad emergency hadii ay ku timaado oo gargaar degdeg u baahan yahay uu yaqiinsado bal nooca dhigiisu yahay si aan baaritaan badan loo garin kulay waxyaabaha inta badan isbitaalada ayaan ku aragna baajiro ah in blood groupkiisa qofkan inta la baarayo ay waqti qaadanayso markii dhiig la raadiyo hadii dhiigaaga la garanayo caawimaad ay ku siinayso wax weeyaan oo dhiigaaga tiraahdo platinum A+ baanahay in markiiba cusbitaalku short list haysto qof A+ oo san bilahan ba ka shubin oo ku waco markiiba degdeg lagu shubo balse markan gaab baa inta ku jira hal saac baa laga yaabaa in dhiigaaga la raadiyo hal saac kale qofkii iyo dadkii la raadiyo halka ay xaalad emergency ka timaado dhibaato iyaduna keenaysa intaas talayga fariinta u dambaysan u diray dhammaan haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa weeyaan wax bartaan waxbarashadoodana ay dadkooda iyo diintooda ku anfacaan inta badan waxa lagu dhaliilaa gabdhaha iyo haweenka markay gabadhu wax barato diintii bay ka tagtaa xijaabkii bay ka tagtaa dhaqankii bay ka tagtaa waxaas ka tagtaa laakiin anigu ma oranayo dhaqan iyo diin baa laga tagay qofku hadduu wax barto oo cilmiga si fiican dhug u yeesho oo wixii uu bartay uu ku camal falo oo malaynayo inuu diinta ka tagayo dhaqankiisana ka tagayo inta kaliya aan u diray wax weeyaan wax barta waxbarashadiinaana dib ugu celiya deegaankii iyo dalkii aad wax barateen uga faa'iideeya haweenka wax baran uga faa'iideeya iskoolka hadda aqoon ka been gacanta ku hayno waxa ugu badan numberka ugu badan waa haween waliba hadda aad moodaynayna madi si fiican u soo fahmayaan raadi dhigalka waagi hore haween baa uga faa'iideyn jiray marka waxay leedahay in gabadhu way ka naxariis badan tahay way ka daryeel badan tahay way ka waqti huris badan tahay waxa laga yaabaa xaafadaada oo jooga buug saaka bilaabay in marba qof intuu soo marana maxaa la nuulada ku yiraahdo ma oga waxaan akhriis wax faa'iido leh inuu yahay laakiin wuxuu haystaa in xaafada guriga iyo waxa la dhahaa waxay ka dhumanayaan shaqada guriga gabdhu markay wax akhriyaan taalafteeda in meesha laga saaro gabdhu markay wax akhrinayaan loo daayo wax akhriskooda markay shaqaynayaan shaqadooda loo daayo oo looga faa'iideeyo waqtiga ay haystaan maanta oo dhan jaamacad jirtay maxay tahay buugana maanta soo saaraysaa inankiina lagu maagayo afraadka sac war wax baro war wax akhri war wax iskoolkii aad gabadhi jaaniska ka faa'iideysanaysa haysatayna lagu dhibaataynayo taalafteeda inay ka feejignaano oo baljiilkii hore tagiyo hadda waxa waa iska siraan inta sii soo ogtaa waa in yare inteena hadda joognaa aynu gaabka meesha ka saarna ah waxbarashada haweenka inay wax matara tahay oo jika waxa la jaamacad haween jika u dambaysa jikadu waa caruur baa joogta nin baa jooga biyo joogta u baahan faa'iido ma oranayo jikadu bila faa'iido weeyaan hadda sideed caruur waxbarasho la'aan soo saar ka war waxma soo kordhiyay waxma soo kordhin laakiin sideed caruur oo aan baataajada u soo dhisay oo aan farta u soo qabtay oo aan qalikii qoraalka baan ugu soo baray haddaan soo saaro de faa'iidan ka jooga marka aan waxa leeyahay haweenku wax bartaan waxbarashadoodana uga faa'iideeyaan dalkooda iyo dadkooda qodobkayga ugu dambeeyay waxa weeye taladaan u soo jeedinaya horta waa tii imikaan sheegayay ahayd daldalooladii imika ahayd inay ka gaabiyaan goobaha caafimaadka kow inay iska saxaan oo ay maxay ahayd toolay aad ugu baraarugsanaadaan qodobka labaadna waxa weeye in maxay ahayd toolay dumarku wax badan way bartaan oo jaamacada waxa dhici karta inay u badnaadaan maxadida u badnaadaan bareefadad malcaamada meel walba u badnaadaan laakiin kaliya ay ka maqan tahay kalsoonidii jaas waxa ka maqan kalsoonidii baa ka maqan waxa loo baahan yahay waxbarashadii waad haysaan aqoontii waad haysaan cilmigii waad haysaan meel walba waad u badantiin waxa la doonayaa inaad isku kalsoonaataan inaad wax badan u faa'iideyn kartaan dadka in cilmigii aqoontii aad imika sida aad ugu badantiin jaamacadaha aad wax badan soo falcelin kartaan wax badan maxay ahayd toolay aad bixin kartaan wax badan aad dadka uga faa'iideyn kartaan sidoo kale qodobkii aan imika sheegay ayaan haddana mar labaad saaraya focuska saaraya waxaan u sheegayaa hooyooyinka dhammaantood maxay ahayd toolay qodobka ah inay ka gaabiyeen goobaha caafimaadka inay mar walba
waxa aan ugu soo celcelinayaa qodobka waxa weeye dhibaatay ku tahay dadkii goobaha caafimaadka joogay ama aan nursing-kan ahaano ama aan digtoorada ahaane waxay dhib bay nagu tahay qofkii xaaladiisu serious tahay inuu noo yimaado markaas waxay u baahanaysaa maxay ahayd toolay dhibaataan kala kulmayna marka si aydan annagana noo dhimin idinkuna naftiina u dhimin waxaad doonayaa maxay ahayd toolay inaad caafimaadkiina bal saartaan bulshadana hagaagtaa waxay ku xidhan tahay idinka caafimaadkiina ku xidhan tahay idinku markaad hagaagto ama maxay ahayd toolay adigu aad noqoto hooyo caafimaad qabta ayaad dhali karaysaa ama maxay ahayd toolay barbaarin karaysaa haba dhalin hadaa doontid aad barbaarin karaysaa maxay ahayd toolay ilmo طبعا iyadoo habaryara iyadoo eeda iyadoo ayeeya bay barbaarin karaysaa marka barbaarintaas waxay ku xidhnaanaysaa caafimaad qabkaagi hooyanimadaas iyo barbaarintu waxay ku xidhnaanaysaa caafimaad qabkaaga marka halkaas saara focuska barnaamijkeena inahaas ku ekaa hal talo oo waxa yiraahdo anigu sii baxsanay waxay tahay gabadha ilaa aad isku filnaato hawl kale isku doonan